barnaamijkeena intaan hawada ku saaxiibka nahay dhagaystayaasha iyo daawadayaasha qiimaha iyo qirada weyn lahow ku soo dhawaada warbaahintiini Southern Media Corporation mar kale iyo mar labaad iyadoo aan la idin kala hayn meel walba adduunyada aad ka joogtaan. madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku gurguurtay jilbahana qabsaday beesha Abgaal Cismaan. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa Abgaal waxa uu ku yiri waxaan doonayaa Abgaalow in aad gacan isiisaan Xaaji Muuse Suudi Yalaxowna la ila heshiisiyo anigu qalad baan galay jilbaha ayaan qabsanayaa waan raali garaynayaa idinkana waan idin raali garaynayaa wiilkiinaan ahay anigu waa la isku kay tagay kursigii waa fadhin la ahay villadii Soomaaliya in la igu dilaa la rabaa ma arkayse macnii gargaar iyo garab baan idin ka rabaa Abgaalow. Muuse Suudi Yalaxow ayaa loo diray ergo inkastoo Muuse Suudi iyo qoyskiisii inta badan aan isgalgelin yani Abgaal kama wado walaalihiisii Muuse ilaan qofka kali ee Soomaaliya jooga weeye marka walaalihiisa loo eega inta kala dibadda jiraan. Axmed Suudi ayaa u dambeeyay Sacuudiga ayuu dhakhtar ka yahay hoteelana waxa uu ku leeyahay Uganda waad ogtihiin saas ay tahayna Muuse shaqada uu ku jiro qoyskiisa kuma faraxsana walaalihiisu waa dad xalaal quudata ah aabii xitaa qandal buu lahaa hogaamiye kooxeed markuu ahaa Muuse yani aana xataa kama rabo dhihi jiray nin xalaal quudatu ahaa. haddaba si kasto ay ahaataba Muusaha laakiin Abgaalka warbay ka maqlaan markii ugu dambeysay Abgaal iyo Xasan way shireen Muusena waa la soo sanduleeyay waxa lagu yiri ballan buu galayaa oo ku qaadaya mar dambe. Abgaal waxay ku yiraahdeen ma rabtaa inaan ku gargaarnaha okay maxaad ka cabanaysaa Xasan wuxuu yiri anigu habar gidir ayaa nafta ii keentay inay idishaan ka baqaaya iyaga Soomaali igu diray iyaga dawladnimadii Soomaaliyana meeshaas dhigay way i khiyaaneen waxaan rabaa Abgaalow inaad iga gargaartaan habar gidir. Xasan Sheekh Maxamuud sidaas oo tolkiisi Abgaal uu sheegay waxay ku yiraahdeen maxaa lagu gargaaraa taliyaha sirdoonka waa ninka shabaabka u shaqeeya ee habar gidirta ah Mahad Salaad ayaa taliye sirdoon aad ka dhigtay oo la wada og yahay ceebtu dhigay la og yahay oo hotel walba oo macnii Soomaali leedahay uu qarxinayo oo dadkana kugu diraayo sidee marka lagu caawin karaa ma ka qaadaysaa Mahad Salaad xilka. Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu yiri waxa igu ballan ah in Mahad Salaad wax walba ay igu qaadato xilka aan ka qaado ballantiini aan fuliyo meesha aan ka wareejiyo Abgaalow. Xasan sidaas ayuu ballan qaaday sidoo kale waxa uu Muuse Suudi u ballan qaaday gudoonka gobolka Banaadir madaale inuu meeshaas ka qaadayo gacanta uu gelinayo Muuse Suudi oo hadda ka hor uu kula ballamay in gudoomiyaha gobolka Banaadir uu siinayo Muuse Suudi Muusena uu la doonayo nin ay dhahaan makaraan oo ah nin ma arkaysa macnihii galmaax Yoonis ah sababtay tahay senatarnimada uu Muuse Suudi ku fadhiyo waxa iskale beesha galmaax Yoonis oo oday wacbuudan ahaan Muuse Suudi ay ugu galadeen oo ergeeyeen oo siiyeen. laakiin Xasan markii campaign-ka lala galay waa tii Muuse Suudi markuu guuleystay Xasan uu uga baxay ballanta. tani waxay ka dambeysay xitaa habeen dhaweyd mar Xasan intuu baxay isagoonan cidna iska hormarin inuu Muuse Suudi u tagay ilaalada ay xabadayn gaadhay marya cadcad iyo odayaal iska hormariyay uu yiri xaajiga ayaan rabaa waa tii jilbaha uu qabsaday waa tii uu raali gareeyay waa tii uu yiri madaxtooyadan kugu casuumaya Muusena uu ku yiri niyow raali garayntaada waan ka qaatay laakiin madaxtooyadaasi inta Mahad Salaad taliye sirdoon uu yahay habar gidirna ay joogto aniga imaan ma ballanna ma lihid kuma aamini karo waa tii markii dambe uu yiri iga hubi Abgaalna igu marqaatiye taasoo keentay in gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe makaraan xilka laga qaado iyadoo loo diyaarinayo yani gobolka Banaadir si ballantii loo fuliyo. Muuse Suudi qof uu wato oo saaxiibo ay yihiin la doonayo gobolka Banaadir oo galmaax Yoonis in loo dhiibo taasoo haddana keentay in Muuse Suudi oo ka soo horjeeday Xasan Sheekh Maxamuud macnii isbedelka ku dhacay aad aragteen oo Xasan uu ka taageeray mikrofoonka baarlamaanka
in dastuurka wax laga bedelo yacni isagoo taxadar muujinaya sidaa uu ku taageeray. marka xasan sheekh maxamuud abgaal su-aal bay weydiiyeen, waxay ku yiraahdeen marka intaan dhibaato ah dowladaadii lagu sameynayay oo habargidir wax walbo ay tiraado aad u yeelaysay, xasanow adigu ma filim baa lagaa duubay, ma rikaata lagugu haystaa, macni ma codsira lagaa hayaa, ma arkayse macnihii say wax kaa yihiin? xasan sheekh maxamuud wuxuu yiri anigu waa la isixray, habargidir ayaa isixratay, waxaan sameynay maba ogeynba, xoogaa la igu haystay, maankayga ma joogin, wax walbana ma arkayse haye ayaan ku dhaayay habargidir, dadka kalena hadday xaq leeyihiin waa ka hor imaanayay, marka sixir baa igalay, habargidir baa isixirtay buu yiri xasan sheekh maxamuud. warka aan sheegayo dadka abgaalka ah ee xasan sheekh maxamuud markay wada hadlaayeen la joogay ee sidaasi uu ku lahaa su-aalahaasi ay weydiinayeen dabcan way daawanayaan. annagu haddaan nahay warbaahinta Southern Media Corporation wararka gunta hoose ayaan idinkaga soo dhiraandhirinaa. xasan sheekh maxamuud waa la isixray buu ku yiri abgaal, habargidir baa isixirtay, xitaa xilalka hadda la magacaabayo ama la magacaabay degmooyinka Horwadaag iyo habargidirtu ay qaybsatay adeerkood Duduble, shanta macnaheed taliyaal ee shanta qabiil ee qaybsatay shaqo iyo shuqul kuma leh isaga, ma oga. waxaa weeye habargidir iyadaa magacaabatay, mahad salaad isagaa magacawday, shaqadan shaqa habargidir wadato waa waxba lagama weydiiyay xasan sheekh maxamuud. xilalka qaar ee la magacaabo oo ma arkaysa macnihii waxyaabaha qaar ee la dhaco, wasaaradaha la boobo, waxba kama ogaba, haddii loo tagana ma diidi karo. xasan wuxuu yiri walaalayaal aniga been idinma sheegaayo, abgaal sida uu ku yiri lafahaygaan u baqayaa buu yiri, anigu habargidir lafahaygaan uga baqay, waana cabsaday, runta haddaan idiin sheego sixiraa la igu qabsaday. horta abgaal waxay ku yiraahdeen niyow laguma aamini karo, ballanna ma lihid, laakiin tookadan waanu ku kaalmaynaynaa, waanu ku eegaynaa haddii dowladnimo saxa Soomaaliya jidkii toosnaa aad qaadaysid oo habargidirna bannaanka aad dhigaysid. marka habargidir iyo abgaal iyo mahad salaad iyo xasan sheekh maxamuud dagaalkooda been ma ahane waa dhab, waa ka dhab. habargidir ma arkayse idaacadaha hadda ay taagan yihiin oo no more xasan sheekh no more abgaal ay leeyihiin, bahasha way fogaatay, meesha ay gaadhay bay garanayaan, iyo sida dagaalka macnaheed xasan sheekh maxamuud abgaal uu dabada ula galay, isla markaasna abgaal ay ugu yiraahdeen saaxiib habargidir meel walbo ay degan tahay ka qaad haddaad run sheegaysid, gobernatoriyada gobolka annagu ma nahay, okay nacaawi mana tiri ha dowladnimadu ha shaqayso, waa in laga saaraa habargidir meel walbo ay xoog ku haysato, dalkan dowladnimo rasmiya waa inay kusoo noqotaa. horta xisaabta meeshaasay maraysaa, taasaana keentay habargidir inay u jabto dhanka farmaajo already, waana dareenteen dhaban cad iyo ma arkayse cabdiraxmaan cabdishakuur iyo ma arkayse habargidirtii in ay xasan sheekh maxamuud dastuurka uu wato ay ka hor timaaday. dagaalka meeshaasu ka socdaa, sirtana waad haysaa. haddee ma arkayse wixii intaas dheer waan isla joognaa. muuqaalka xiga ka hor waxaan idin leenahay camalkana ilaahay dartiisa u qabo, maxaa yeelay midkaad u camal falaysaa daraaddii eebe wuu arkayaa. sahaydana badso, safarka waa uu dheeryahay, xamuulkana iska yare, kaabada la fuuli doono mid adag weeyaan. xasan sheekh maxamuud jagada ma ka qaadaya mahad maxamed salaad? nacam waa uu ka qaadayaa, reerkiisa ayaana la go-aamiyey arrinkaasi, ka noqosho male, iyagiibaa isdilaya. villa Soomaaliya habeen hore marka xasan waa lagu weeraray aan ku lahaa been baad u haysatay, maadaama mahad salaad xilka ka deg la yiri, isagana mahad inuu qaarajiyo rabay, watan ciidamo Etoobiyaan ay abis oo xasan u wacday. sheekada marka waa ay kulushahay, waa la isgaadgaadaya. xasanna wuxuu reerkiisa u sheegay lafahayga ayaan uga baqayaa, habargidir buu yiri, wayna isixireen. marka xasan sheekh maxamuud hadda maanta wuxuu soo dhajiyay anigu habargidiraa isixiratay, sixiraa la igu haystay, sidaasuu abgaal u sheegay. ma runba ma beenba aniga ma ogi, laakiin waa la kala tegay, waana la kala dhaqaaqay. qaraxyo fara badanna waa ay jiraan, waa tan hore aan idinkugu sheegnay, beesha caalamkana ay ka digtay oy tiri xataa villa Soomaaliya la qarxin doonaa. qaraxana waxaa wada waa habargidir, iyaga ayaa maadkarataay iyo iyaga unbaa wax qarxiya, iyaga unbaana wax maxkamadeeya, iyaga unbaana xoog wax ku qabsada. meesha ay ku dhammaato aragaane farda la isugu joogo la iskuma faanay ahayd.